caqabadaha horta ugu waaweyn ee dowladdan cusub yaallo waxaa ugu muhiimsan ay tahay horta ammaankii in wax laga qabto oo la xaqiijiyo ammaankii waxaa lagu doortana farmaajo waxay aheeday ballanqaadyadii uu ballan qaadayay 60% ballanqaadyadiisa ay ku saabsanaayeen in ay dadka Soomaaliyeed ay heli doonaan nabad ammaan oo ay ku wada shaqaystaan ku wada noolaadaan rajada ay dadka ay gashana oo ahayd in wax laga qaban karo 4 sano inaan wax looga qaban karin ammaanka marka dhismaha ciidanka waqti ay qaadanaysa dowladda Soomaaliya waa fakri ah aanan awood badan u lahayn in ay markii xoog la dhisto waxaana ugu daran dhismaha ciidanka waxa ay tahay Soomaaliya waxa saaran una qabatayn caalami ah oo xagga hubka ciidamada ah waa caqabad xagga nabadda ku imaanaysa oo u baahan iyada naftirkeeda kaliya gudaha aynan ahayn dibadda u baahan tahay in wax laga qabto oo loo sameeyo galaangal badan loo sameeyo ka dhaadhicin saaxiibo la helo in cunaqabatayntii la qaado kadibna la helo iyo saaxiibo oo kula dhisaan ciidankii kula dhisaan waxyaabaha uu farmaajo aad uga hadlay amaba uga hadli jiray markii uu ololaha ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu la dagaalamayo musuq maasuqa ma kula tahay muddadan 4 sano ah ee uu haysto in uu ka meel keeni karo dagaalkaasi uu sheegay in uu ku qaadayo musuq maasuqa Soomaaliya haddii aad fiirisid waa dal aad fakri u ah dhaqaale lahayn waxa yarkaa soo galaya dekada airportka wax iska xisaabsan hay'adaha caalamiga markay leeyihiin Soomaaliya waxay ka gashay in corruptionka liiska ugu dambeeya macnaheedu ma wax in la wada boobay macnaheedu waxa ay tahay systemka la isku xisaabiyo accountability-ga ee dhaqaalaha ayaana saxsaneyn oo deganeyn marka lama yaqaanaba taas waa marka haddii farmaajo uu sameeyo system accountability leh transparency leh oo la isku xisaabtami karo way yaraanaysaa laalushka waa in uu la dagaalami karaa waliba midda ugu muhiimsan inuu dhisay ay tahay hay'adan la yiraahdo la socodka qandaraasyada haddii uu dhiso oo waxa qandaraas heshiis la gelayo oo dhan halkaas soo wada marayo oo si cad oo cadaalad lagu wada qaybsanayo markaas waxay ahaanaysaa waxa yaraaday corruptionkii yaraaday waaye marka laga hadlayo midnimada Soomaaliya madaxweynuhu aad buu uga hadlay inuu midnimadii waddanka soo celin doono ma kula tahay in arrintaasi ay u fududaan doonto waa culays badan tahay aad ay u culays badan tahay waxay u baahan tahay waqti wada hadal deganaan isqancin iyo dad oo arrintaas ka mira dhaligta in loo magacaabo ay u baahan tahay oo joogtaynay u baahan tahay labadii dowladood isaga ka horreysay waxay arrintaa ugu guulaysan waayeen joogtaynayna lahayn oo keliya waxay ahayd si caalamiin la isaga yeero in la isu yimaado dad oo la magacaabo haddii laakiin ay jiri lahayd joogtayn deriska ka qayb qaadanayaan caalamka ka qayb qaadanayaan 3 bilo 6 bilo markii la jooga la helo waxbaa soo fududaan karo in waxyaalaha xanafta marka hore uu kala boodaayo in tartiib inta la isla fahmi karo oo la isla ogol yahay in la isla wada bilaabo marka ka soo gaabo kale in duulimaadka oo kale aad Soomaaliya ugu celcelinaya haddii arrinta duulimaadka la dhameeyo oo si uu lagu dhameeyo albaab furmay noqonaysaa oo kan kale looga sii gudbi karo ma ahan waqooyi iyo koonfur oo kaliya marka midnimada laga hadlayo sida dadka qaar ay qabaan Soomaaliya waxaa ka jira hadda maamul goboleedyo fara badan oo ilaa 5 maamul goboleed baa wadankii ka jirta maamul goboleedyadaas la fahaantooda waxaa la leeyahay uma diyaarsana in ay qaabkii dawlad xoogan ay ku shaqayn jirtay ay ula shaqeeyaan waxaa laga yaabaa inayba iyaga la fahaantooda caqabad ku noqdaan dawladdan cusub qaabkee baad aaminsan tahay in farmaajo ama madaxweynuhu uu ula tacaamuli karo ama uu la dhaqmi karo maamul goboleedyada iyadoo la dhowrayo siduu hore u ballan qaaday sharaftii iyo karaamadii qarannimada Soomaaliya waa in isla wada shaqeeyaan oo si isula shaqeeyaan oo la taaban karo oo horumar leh oo isdhegaysi leh oo wada shaqeyn oo kala dambeyn leh lana wada dhowraya nidaamka dastuurka iyo shuruucda kala dalka sidee ku iman kartaa midda maqana marka waxay tahay oo anaga warbixinteena aan ku sheegnay in uu madaxweynaha si dhow ula shaqeeyo madaxweynayaasha iyo dawlad iyo wasaaradaha iyo dawladaha hoose ee maamul goboleedyada isagoo isku xirayna dawladda dhexe iyo dawladaha maamul goboleedyada inay ka wada shaqeeyaan dhammaan arrimaha qusaynayo ammaanka in horumarinta bulshada in wadaagga in khayraadka dalka iyo
awoodda baahinteeda iyo qaybsigeeda iyo awoodda qaybinteeda intaasaan tilmaam ka bixina oon leenahay waa inuu si dhow kala shaqeeyaa haddii uu taas sameeyo oo uu si dhow ula shaqayn waayo waxaa imaanaysa markaasi qaybsanaana imaanayso waxaa imaanaysa in la wada shaqayn waayo waxayna noqonaysaa caqabad iyo dib